aan iska baro magaciigu waa Haashim waxa aan u dhaxeeyaa da'da 25 ilaa 30 waxa aan ahay shakhsi aan nasiib u yeelanin inuu helo hooyadiis iyo aabihiis farxadooda dhanka kale iska dahaye maanan helinin farxad qaraabo ama mid xigaal ee ka socdo dhanka hooyaday amaba aabahay waxay nolosheedu ku bilaabatay geed hoostiisa durbadiina waxa ay hantiday amaba la wareegtay noloshayda isbitaalkii hooyada iyo dhallaanka ee soos waxaanay soo koriyey aayaddii Save Ourself ee markii magaceeda la soo gaabiyo loo yaqaanay soos waxaan ahay shakhsi soo helay nolol fiican waxbarasho iyo weliba caafimaad nasiib darro sanadii 2006 waxa ay ahayd maalin madow ee naga soo saartay baalkii hooyo soos oo aan gabaadka kaga ahayn qobada iyo weliba hanfiga kaasi oo markii ka dhacday dalka dagaal u dhaxeeya ciidamada Itoobiya oo muqaawamadii ay bilowday hay'adii gacanta nagu haysay inay dalka isaga baxdo waxaana durbadiina u martinay cidlo aan bannaanka naalno aniga iyo caruur fara badan oo ku soo koray isbitaalka gudihiisa maalmo kadib waxaan ka war helay in uu go'ay qutulyoonkii ama raashinkii waxaana u soo baxay bannaanka xerada si aan u maareeyo noloshayda balse nasiib darro jaanus uma aanan helin middaasi waxaana isku dayay in aan durbadiiba nafsadayda qutulyoonkeeda bannaanka u soo saaro waxaanan galay in aan dhaqo gawaarida kana shaqeeya maqaaxyada inkastoo shaqadaasi ay ugu adkeed haddana durbadiiba waa la qabsaday maadaama aan ahay shakhsi baahan waxa uu socdo dagaalka maanta waxaa la soo gaaray xilli aan daano maskixiyan aan qabo waxaana ii sii dheer inay igu dhacday xanuunka tiibeyda igagana dhacay feeraha ma lihi hooyo mana lihi aabbo mana jiraan qaraabo aan ku tiirsanahay maanta waxa aana hooy ii ah xeradii aan ku soo barbaaray bannaankeeda waxaanan jiiftaa derbiga xerada u wareegsan qaybta baakinnada waxaanan ahay bisadu halkii ay mac ugu barato ayay macluul ugu baktisaa maantana waxa aan hooy ka dhigtaa halkaasi waxaana weliba ka ureeyaa noloshii hore aan ku soo barbaaray noloshaydu waxa ay ka bilaabatay bannaan waxa ayna hadda taallaa bannaan mana garanayo xilliga aan ka xaroon doono bannaanka magacaygu waxaa la yidhaahdaa Haashim 22 jir wakhtiga uu ka hiiliyey